Culaysyadii ugu badnaa xilligan uu wajahayo Siciidani maxay tahay wax xilligan laga qariyay ee ku gadaaman safarkiisa qarsoodiga ee gaalkacyo iyo kulamada odayaasha dhaqanka gaalkacyo uu kula yeelanayo xoogihii ugu dambeeyay oo faahfaahsan oo ka daasanayaan daawada muuqaalkan kugu soo koobaya haddii muuqaalku uu soo gaaro si sheegaray saaxiibada ugu soo bilaakan waa Bartamaha TV. haddii aynu ku bilowno magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug si gaar ah waqooyiga magaaladaasi waxaa lagu soo waramayaa inuu gaaray hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. safarkan waa mid qarsoodiya horeyna aan loo sii shaacin ayuu Siciid Dani kaga soo ambaxay magaalada Garowe xalay waxaana uu ku soo gaaray magaalada gaalkacyo si gaar ah waqooyiga magaaladaas oo halka ay ka taliso maamulka Puntland. Siciid Cabdullaahi Dani safarkiisa qarsoodiga ee gaalkacyo uu ku yimid ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dambeeyay kadib markii cadaadiskii ugu badnaa uu kala kulmay odayaasha dhaqankii waxgaradka ka soo jeeday gobolka mudug ee ku sugan magaalada gaalkacyo kuwaas Siciid Dani ku cadaadinayay maalmihii la soo dhaafay inuu safar ku yimaado magaalada gaalkacyo si wax badan la iskaga weydiiyo biliqadii iyo boobkii lagula kacay xarunta ciidamada BSF ay ku lahaayeen magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug. mala dhiban tahay oo ma isku aragtaa qandho joogto ah, madax xanuun, labalaba zaa'id ah, bogo iyo beerka oo ku olola, tabardarro zaa'id ah, xubnaha oo ku xanuuna ama socodka oo ku dhiba, indhuhu ma ku madoobaadaan. kaalay waxaan ku hayaa dhakhtarkaagii isbitaalka Fiqi Hospital waxaa kugu diyaaro 24 saaxiigan kugu ah dhakhtar Fiqi oo in ka badan 30 sano takhasus leh. caafimaadku waa qaali iyo hadda gaar isbitaalka Fiqi oo kumaan eeb uu ku caafiyay ama kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda. Siciid Cabdullaahi Dani oo culaysyada intaa leeg wajahaya ayaa lagu soo waramayaa xalay safar qarsoodiya oo aan horey madaxtooyada u sii shaacin inuu ku soo gaaray magaalada gaalkacyo waxaana lagu soo waramayaa xilligan inay socoto qabanqaabadii ugu dambeeyay kulamo uu la yeelanayo odayaasha dhaqanka oo Siciid Dani wax badan laga weydiin doono biliqadii ay ku kaceen ciidamadii ugu badnaa ee ka tirsanaa kuwa daraawiisha Puntland iyo in loo fasaxo shacabka magaalada gaalkacyo xiradii ciidamada BSF ay ku lahaayeen waqooyiga magaalada gaalkacyo. waxaa la sheegay arrintan in si gaar ah kaga dambeysay kadib markii toddobaadkii hore Siciid Cabdullaahi Dani iyo ciidamada taabacsan ee daraawiisha Puntland si ammaan nabadgelyo loogu wareejiyay xiradii ciidamada BSF ay ku lahaayeen magaalada Boosaaso waxaase xilligaas wixii ka dambeeyay jiray su'aalo toos oo dib uganaya xafiiska Siciid Cabdullaahi Dani oo ku gadaaman boobkii lagu sameeyay hantidii taale xirada ciidamada BSF ee waqooyiga magaalada gaalkacyo. Siciid Dani su'aalaha ugu badan oo wajahaya ayaa waxay ahayd hantidii la biliqeystay mid ay lahaayeen ciidamo maleeshiyada mise waxay ahayd hanti ay lahaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaasoo ka hor ka tirsanaa Siciid Cabdullaahi Dani maamulkiisa Puntland. su'aalahaas qaarkood waxay keeneen inay culays ku noqdaan Siciid Cabdullaahi Dani ayna soo dadejiyay safarkan qarsoodiga inuu ku yimaado magaalada gaalkacyo kulamo heerkoodu kala sareeyay heer degmashada kala heer gobol odayaasha dhaqanka dhankooda qayb ay ka yihiin ayaa xilligan gaalkacyo laga abaabulaya saacadaha soo aadan waxay ka qabsoomi doonaan gudaha magaaladaas iyadoo ciidamadii ugu badnaa daacadda Siciid Cabdullaahi Dani ay ku sugan yihiin magaalada gaalkacyo si ay u xaqiijiyaan amniga guud ee gudaha magaaladaas. tani markii toddobaadkii hore dagaal ka dhacay gaalkacyo si guud ciidamada BSF ay isaga bixeen xirada ay ku lahaayeen gudaha magaaladaas. Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu jeediyay khudbad arrinkaasi uu kaga hadlayo isagoo adeegtii ugu badneed u jeediyay dowladda dhexe Soomaaliya oo uu ku eedeeyay xilligan faragelin ay military ku sameeysay deegaanada maamulka Puntland. waxaa sidoo kale ammaan u hubiyay saraakiisha hogaaminaysay ciidamadii la wareegay xirada ciidamada BSF ku taala magaalada gaalkacyo. xog walba ka soo korortay kulamada gaalkacyo saacadaha soo aadan ka dhacaya iyo culeysyada aanu xamili karin Siciid Dani xilligan uu wajahayo wixii ka soo kordha wararkeena barnaamijyada dambeeya daawayaal idin kula wadaagi doona hadduu Rabbi qadaro.